magaalada ama suuqa bakaaraha ma ahan markii ugu horeeyay ay gubatay ma ahan marar badan ay gubatay ama bakaaraha marar badan uu gubtay gubashadaas uu suuqa gubanayana sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheego asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum aadanaha wixii dhibahoo soo gaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay wax ay gacmahooda ku kasbadeen inay yihiin ayuu ilaahay noo sheegay marka suuqa waa gubtay weliba meesha gubatay iyo qaabka u gubtay kulli waa laga warqabaa xilli habeen hoosaq dhaxa ayuu suuqa gubtay meelaha hadda gubatayna waxaan dhihi karnaa suuqa runtii inta ugu muhiimsanayd ama meelihii dadka danyarta ay ka shaqaysanayeen qootiyadooda kasoo saaranayeen ayaa gubatay ama baaxad ugu weyn ayaa suuqa ka gubtay marka dhacdada waa la soconaa dadka muslimiinta dhibkaas soo gaarayna ma ahan markii ugu horeysa ma ahan oo maalmo ka hor ayaa suuqa uu gubtay waxaasoo dhanna waxaan isleenahay ilaahay subxaanahu watacaala siduu sheegay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum kulli waa wax aadanaha ay gacmahooda ku samaysteen sheekhana khasaare hantiyadeed intee leeg ayaa ka dhashay dabkaasi suuqa ka kacay maxaase lagu qiyaasi karaa khasaaraha dadka uu gaarsiiyey dabkaas kulli waxaan dhihi karnaa wixii hanti meeshaas yaalay oo ama dhismo ah oo yani dhismaha guryaha dhisnay ama maxay ahayd wixii badeecaha dhex tiilay inta gubatay waxaan dhihi karnaa kulli wax ka badbaaday ma jiraan meeshii waxay noqotay meel haawanayso oo maxay ahayd jangadihii iyo gurigii dhamay isku dhex daateen meeshaas marka waxaan dhihi karnaa waxaa ka dhashay khasaare lixaadle ayaa ka dhashay kulli xilligana waxaan ognahay wadanka Soomaaliya inuu ka jiro maxay ahayd abaar baahsan inay ka jirto waa meeshii yastahay dadka muslimiinta aan looga durma lahaa wax looga aruurinayo wax looga waxaynayo waxaan dhihi karnaa marka halkaas waxaa ka dhalatay ama ka dhacday khasaare fara badan oo maxay ahayd aad iyo aad u lixaad leh laakiin ma suuragelayso hadeer in la yiraahdo khasaaraha ama maxay ahayd wax dhibka soo gaaray intaas oo leeyahay ma suuragelayso wax la kala koobi karana ma ahan maxaa yeelay dhulka gubtay waa dhul aad iyo aad u baaxad weyn suuqa intiisa badneed ama inta uu yani mataqaana maxay ahayd muhiimsaneed oo dadka danyarta ay ka shaqaysanayeen waa baaba'ay marka waxaan dhihi karnaa meesha waxaa ka dhashay khasaare aad iyo aad u lixaad leh ilaahay nabadka muslimiinta waxaan u rajaynaynaa wixii dhibahoo soo gaaray ilaahay subxaanahu watacaala ha u kabo oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa u yagleelo ayagana maxay ahaaday waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay isku tashadaan oo isgarab qabtaan oo isgacmo qabtaan oo maxay ahaaday wax isu waxayaan ayaa la rabaa waayahay sheekhana markii ugu horeysay oo suuqa bakaaraha uu gubto maahan dhowr jeer oo hore ayuu gubtay markii ugu dambeysay hadda suuqa waxa laga joogaa oo gubtay muddo 2 bil ah maxaa arinkaas wilaayada ay ka leedahay mise laga yaabaa in suuqa gubashadiisa gacmo shisheeye ay ku jiraan mise sida dadka qaarkood ay u fasirayaan koronto khaldan ama dab khaldan ayaa suuqa ka kacay oo gubay horta aan ognahay hadeerna aan sheexayna ku cadaynayno suuqa wuxuu gubtay saq dhexe oo dadku ay hurdayaan oo la wada jiifo oo dabka bilowday xilligaas marka dadku waxaan ognahay markay ka rawaxayaan meheradahooda iyo dukaamada markay dukaamadooda ka rawaxayaan qof waliba maxay ahayd korontiisa waa dantada dadkiisa waa dantada waxaa dhici karta marka xilligaas mataqaana wax shaah meesha ku karsanayo iyo dab shidan iyo maxay ahaaday midna ma jirto midda kale wax hadda anaga aan hubno oon dhihi karno maxay ahaaday qadiyadan ayaga ah si khaasa ayaa cadowga uga dambeeyey aan dhihi karna ma jirto laakiin ilaahay subxaanahu watacaala siduu quraankiisa noogu sheegay in tamsaskum xasanatun tasuuhum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu bihaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay haddii dhib iyo maxay ahayd rafaad iyo gubasho iyo baaba iyo dhib uu dadka muslimiinta uu soo gaaro inay gaalada ku farxayaan anaga marka waa hubnaa dhibka dhacayo iyo mataqaana masaa'ibta dhacayso inay gaalo iyo cadow uu lug leeyahay gacmo shay ay ka dambeeyaan laakiin qadiyadaas iyada ah si gaara waxay u baahan tahay baaritaan iyo maxay ahayd in aad loo yani dhugtay u baahan tahay laakiin si guud waxaan ognahay maadaama wadanka uu cadow haysto cadowgaas wadanka haystana uusan jeclayn sida ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay wadduu maa canidtum waxay jecel yihiin wax allay wax aan ku dhibtoono iyo wixii dhibka nagu ah ayay jecel yihiin marka waa la hubaa oo hadda waxaan ognahay maalintii dhaweed 2 bil ka hor
in suuqa bakaaraha maalin cad uu gubtay habeenkiina maxay ahayd suuq kale madiina ku yaal uu gubtay isla habeenkaasna suuq ku yaal magaalada baydhabo uu gubtay waxaasoo dhan marka waa wax maxay ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa iyo cadowga islaamka ay luku leeyihiin si guud ahaan laakiin qadiyadaas si gaar ah uga dambeeyaan waxay u baahan tahay baaritaan